markuu yiri Mareykanka ii soo hiiliyay reer Yurub waxay yiraahdeen dagaalkan taladeedii miyaad u gashay dagaalka iyagii ma aha maya bayra waa lagu kala dhintay waa maqlaysaa hadda ayada iyo aflagaadada iyo waxa ay isu geysanayaan waa nasri ilaahay xaqiisa ka ahaaday subhanahu wa ta'ala intii goor tahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed ceebtoodii ba banaan ku soo dhacday iyo shacabkii Soomaaliyeed ba intii goor tahay hala tashado gacmo maran ayaynu iyo af maran baynu haynaa haddaan la helin dawlad hal meel ka talisa had isnaado waxaan ku yiraahdaa federaalku maamuladu had isnaadeen laakiin taladu ugu dambeyn meelay ka goodaa waa inay jiraan adduunka federaal waa ka jira Mareykanka waa federaal talada haddana Trump ba iska wado aragtay waa loo deynay baarlamaan baale lagu farfaraynayo waa aragtay isaga hadii la doono waa la heli karaa laakiin khilaaf kale ma jiro hadii kale la isdifaaci maayo haddaan dawlad midan la helin sida duruuska iyo nusayriyiinta iyo waa nimankan hadda jooga meesha la yiraahdo Suuriya iyo bahaa'iyiinta iyo qaraamatada iyo kuwaas iyagu afqooyin si xaq jiro culimadu waa kufaar bay yiraahdaan taqriiban culimada sunna isku waafaqay laakiin nimankan 12 la yiraahdo hadda u badan shiicada oo hadda nimankan haya dawladda Iran madaxda u ah iyaga laftigoodu waa niman aad u xun muslimiintana calaawad badan u haya markii kacaankii Iran uu dhashay 1979 marka ka hor boqorro shaah la oran jiray wadanka xukumi jiray niman dabadhilif ay ahaayeen oo Mareykanka Yahuuda dabadhilif u ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لوا موضوع بان ربا أما لوا كلمة كوبان برنامج كإنان كدره كان هوري وحوي محا كيني أما أسبابها كيني محييين إن إيران لويراره oo Mareykan iyo Yahuud iyo waxa agahay ku qaateen oo dhan inay weeraraan maxay rabeen inay Iran gaarsiiyaan iyo dagaalkii haduu dhacay saameynta uu ku yeelan karo caalamka islaami iyo caalamka carabi iyo waliba hatta gaaladii kale iyo wadamadii Yurub sidoo kale inaga haddaan Soomaaliin nahay dagaalkaas dhacay maxaan ka faa'iideysanaynaa maxaa inoo ka eego inuu aragnay sida caalamka uga dhacayaan waxaan rabaa marka inaan hormariyo maxaa keenay mowduucan in laga hadlo dadka qaarkii waxa laga yaabaa inay isiraahdaan mowduuc siyaasadeed weeye maxaa wadaadada geliyay warkaasina sax ma aha qofka muslimka ah sideeda waa inuu yahay waaqici waxa hareerihiisa ka dhacaya iyo adduunka ka dhacaya waa inuu la socdaa waa inuu wax ku qaybsanaya quraanka iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas ayaa la ina ku baray Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ya ulil absar dadka aqliyaasha saafida aleeho ku ibraqata waxa adduunka ka dhacaya ayadan waxay kamid ahayd aayaadkii markii nimankii yahuuda ahaa oo bani nadir la jabiyay iyo sidii ay u jabeen markii Ilaahay ka warramay Ilaahay yiri ku ibraqaat niman yahuuda bay ahaayeen nimankaasi jabka iyaga xataa gacmahooda isku jabiyay sida ay u jabeen ku ibraqaat oo hadda kadib haydin gasho taariikhda waxaad uga faa'iideysataa sidoo kale marka i'tibaarku waxa weeye waxa la yiri وقياس ما غاب على ما ظهر وحدعي إن لوغا فائديستو وحان ولي دحين هذا الدغال با دحاي wax badan ayaa soo baxay waa in mustaqbalka adduunyada oo dhan waxbay qorayeen intaas maalin walba waxa la qoray Mareykan baa rabay inuu ka faa'iideysto dagaalkaas Yahuud baa ka faa'iideysanaya reer Yurub baa ka faa'iideysanaya wadamadii kale Islaamka ka faa'iideysanaya kulli qolo walba haday siyaasad tahay haday military tahay haday dhaqaale tahay cid walba shirar baa loo fadhiyaa wixii dhacay waa aragnay haday barina qabsadaan waxa soo kale sidee ka yeelayna
مركله الله سبحانه وتعالى قرآنك سورة عنكبوت بلوغ الله وحكيري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون reer Room waa laga adkaaday oo dhulkaas dhow oo carab markii dhulkooda ugu dhow waa laga adkaaday laakiin way adkaan doonaan ayaama yar kadib fi bid'i siniina lillahi amru min qabl wa min ba'du ayaama yar kadib way adkaan doonaan markaas ilaahay waa yooma in yafraxu mu'minuuna bi nasrillah maalintaas mu'miniintu ku farxi doonaan guusha ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala آيات كان سبب نزول بيلهايين intii maka la joogay oo nabiga soo hijroon sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa dagaal ka dhex dhacay boqortooyadii Faris la oran jiray oo hadda dhulkan Iran ay degan tahay ka dhisnay ilaa iyo bariga fog bay xukumeen boqortooyo xoog badan bay ahay waxay ahaayeen niman dabcaabuda oo mushrikiin ah iyo boqortooyadii Room la oran jiray waa labada boqortooy adduunka ugu waaweyn bay ahaayeen oo iyagu Kristaan ahaa dagaalkaas marka nimanka reer Room baa la jibiyay oo Kristaanka ah makana waxa joogay dad muslimiin ah iyo nimanka mushrikiinta ah dadkii muslimiinta ah marka arinta aad bay uga xumaadeen mushrikiintina waa ku farxeen maxaa yeelay mushrikiintii baa faano waxay yiraahdeen nimankii anagu aan isku diinta ahayn oo mushrikiinta ahaayo reer Faris ayaa ka adkaaday nimankii diinta lahaay masiixiyiinta ahaayo reer Room saasoo kale idinkuna macnaha idinka adkaanayn arinta muuminiinta aad u dhigtay marka waxay jeclaysteen mar in reer Room ay adkaadaan markaas ilaahay ugu bishaareeyay wax yar kadib inay adkaan doonaan wayna dhacday oo ayaantii Badar ay dhacday isla ayaantaas ayaa dagaalkii oo kala dhacay maalinta nimankii reer Faris oo mushrikiinta ah hilfaha loo qaad markaas muslimiintii waxay ku farxeen laba farax Badar adkaantay ku adkaadeen oo gaalada ilaahay jabiyay iyo jabintii reer Faris la jabiyay waxa ay mushrikiin baahan ayaantaas halka waxaad ka arkaysaa waxa la ina baraya qofka muslimka inuu yahay qof waaqiciisa la socda oo hatta nasaaradu marka muslimiin ma ahayn laakiin way ka sokeeyeen mushrikiinta way ka sokeeyeen sidaas ayaa hiilkooda muslimiinta ay u jeclaayeen in iyagu ay guuleystaan nabigeena alayhi salaatu wasalaam waxa ka sugnaatay ama aayaadka daa hormariyo Allah wuxuu markale yiri awalam yara anna nata'adna qusaha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab mawaanay ku cibra qaadanayn arladii in dhinacyadooda la soo qabsanayo oo dhulkii la soo yareynayo oo gaaladii laga soo adkaanayo mawaanay ku cibra qaadanay aayadan waxay tusinaysaa waxa hareeraheena ka dhacaya inaan ku cibra qaadano oo aan mustaqbalkeena inaan uga fikirno saan uga faa'iideysanayn waxa dhacay waxa kale nabiga ka sugnaatay alayhi salaatu inuu yiri la yuldaqul mu'minu min juhrin marratayn qofka muuminka hal god laba jeer lagama wada qaniino hadii maalin la dago maalin labaad lama dago xadiiskan sabab laha nin shaacir mushrikiinta kamid aha oo Abu Azza al-Jumahi la oran jiray ayaa waxa la qabtay ayaantii Badar gaaladii la qabto kamid ah markaas nabiga uu calaacalay aruur baan leeyahay gabdhaan leeyahay rasuulkii ilaahay uu siida maanta yafi waska cafi nabiga kaleey salaatu gawayaa wuxuu awal marka nabiga iyo asxaabtu soo caayi jiray ninkii haduu maka ku noqday meeshii waa aydi ka bilaab dabadeedna qaswadii Uhud baan filayaa inay ahayd ayaa la qabtay markaas sidoo kale markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ay hal god laba meelo laba jeer lagama wada qaniino qoortu dheereeyay nabigu alayhi salaatu maalin baa idagtay maalin baa idaginays wixii marka dhaca oo waliba ku quseeya oo jab aha in maalin labaad sidoo kale aad u jabtaa sax ma ah marka ujeedadu waxa weeye qofka muslimkaasiyada waa inuu waaciya oo uu la socdaa waxa hareerihiisa ka dhacay laakiin aniga waxba igama quseeyana hadaa tiraahdid gurigaaga bari lagu soo galay oo sidii la doono laga yeelay hadaan ka tashan waxa reeraha ka dhacay markaan labada mowduuc soo gudbo kan hore oo ah maxaa keenay in la weeraro Iran asbaabaha ay u weerareen Yahuudiya Mareykan waxana waa u qarsoon yihiin badanaana iyagaaba sheegayba
maxaa horta keenay baan ku hormarayaa in aynu jeclaano inay Iiraan adkaato. Iiraan sida sheekhu ka warramay waa firqo ka mid ah firqooyinka muslimiinta laakiin aad u fog oo waad aragtana caqiidadooda aad bay u fog tahay. qaar iyaga sii kala fog oo qaar badan oo ka mid ah culimadu waaba gaari bay yiraahdeen sida duruuska iyo nusayriyiinta iyo waa nimankan hadda jooga meesha la yiraahdo Suuriya iyo bahaa'iyiinta iyo qaraamidada iyo kuwaas iyagu waa firqooyin sii xad jiro culimadu waaba kufaar bay yiraahdaan taqriiban culimada sunnada isku waafaqay. laakiin nimankan 12 la yiraahdo hadda u badan shiicada oo hadda nimankan haya dawladda Iiraan madaxda u ah iyaga laftigoodu waa niman aad u xun muslimiintana calaawad badan u haya. markii kacaankii Iiraan uu dhashay 1979 marka ka hor boqorro shaah la oran jiray wadanka xukumi jiray niman dabadhilif ay ahaayeen oo Mareykanka Yahuuda dabadhilif u ah oo Ingiriis iyo Mareykan baa iska maamulan jiray barwaaqshidaalkooda iyo dhaqaalahooda cuni jiray. waxay ahaayeen dawladihii ugu horeeyay Yahuud markii 1948 dawladooda la dhisay aqoonsaday bay ahaayeen dad aad islaamka uga horjeeday ah. kacaankii markuu dhashay marka oo nimankii xukunka laga tuuray oo ay soo baxeen nimankan magaca walaadada wata waxay bilaabeen barnaamij bay degsadeen tashayuca caalamul islaami ay ku fidiyaan oo dawladihii islaamka iyo sunnaha ay la dagaalamaan. waxay sameeyeen waynu ognahay Ciraaq waxay ka dhigeen intay xasuuqeen boqolaal kun bay Suuriya ku dileen. Yaman waxay hadda ka sameynayaan waynu la soconnaa. haddana iyagoo sidaas ah marka iyaga iyo ay isqabtaan Yahuud iyo Mareykan iyaga la jirayna inay adkaadaan laba sababood. waa dad magac islaam ku abtirsada asbaabaha loola dagaalamayana way sheegeen Mareykanka iyo Yahuud labadaba waxa kamid ah inay muslimiin yihiin sidaa daraaddeed dawlad islaam oo awood badan inay sadhisnaan oo la burburiyo. midda labaadna madluumiin weeye waa dad la dulmiyay qofka la dulmiyayna ama gaal kasta uu yahay xataa waa in loo hiiliyaa haddaad u hiilin ka dhig waxay dulmiga Ilaahay ma ogola cid walba oo ku dhacayo Ilaahay raali kama ah subhanahu wa ta'ala. asbaabaha marka ay u duulaanka ugu qaadeen waxa kamid ah asal ahaan horta ogaada caalamul islaami dagaal ka dhaca ama gaalaha ku qaado Mareykan iyo Yurub ama iyaga dhexdooda hal isku diro Yahuud baa ka damaysa ama iyaga toos ugu lug leh ama dawladda ay wakiisheen magac islaam wata ayaa ka damaya. caalamka marka labay caalamul islaam marka la yiraahdo labay u qaybiyeen oo Yahuud iyo Mareykan siyaasadda digsadeen labay u qaybsadeen. qaybna waxay kula dhaqmaan siyaasad ah siyaasatu tashhiin qaybna siyaasatu waxay kula dhaqmaan maxaan ku ilaahay at-tahmiish. macnaha waxa weeye qolana waxay yiraahdeen waxa ka soo bixi kara cadow Yahuud ama Mareykan iyo siyaasadda wataan ka hor imaan kara waa in la burburiyaa oo midnimadooda dawladda la burburiyaa. waxa kamid ah dawladahaas Ciraaq waa siyaasadda lagu fuliyay dawlad sunni ah oo xoog badan oo islaam bay ahayd waa lagu duulay waa la burburiyay. firqooyin Kurdi iyo Shiico iyo Sunni baa loo qaybiyay. dawladaha nuclearka inay sameeyaan u dhoobay ahayd caalamka dawladaha ugu xoog badan bay ahayd maantana meesha marayaan waad arkaysaa. waxa kamid ah Suuriya siyaasadda ay kula dhaqmaan in la burburiyo. waxa kamid ah dawladaha Soomaaliya siyaasadda inay ku socotaa siyaasad Yahuudeed weeye wadanka in la kala qaybiyo oo dawladda aanay u dhismin cid walba ha u fuliso ama ha ogaadaan ama yaanay ogaan. waxa kamid ah Suudaan siyaasadda ka socota oo lagu burburinayo waa siyaasad Yahuudeed. Yaman waxa ka socda waa siyaasad Yahuudeed. marka dawladaha waxay ugu talagaleen in la burburiyo si aysan awood marna u yeelan innagana kamid. qaybta kale waxa weeye siyaasad tahmiish in lagu dhaqmo dawlado aan magaca dawladda ka ah laakiin iyaga ka amar qaata sida dawladaha Carabta hadda ay u badan yihiin oo saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay wax door ah siyaasadda caalamka kuma laha. iyaga bay Mareykan bay ka dameeyaan Yahuud ay ku dabanaman tahay waxa ay rabaan bay socodsiiyaan. niman madax bay xukunka haya oo aan ka hor imaanayn. marka Iiraan
كو waxaa la rabay maadaama ay dawlad xoog badan noqotay oo awood leh كو waxay rabeen inay burburiyaan oo sida Ciraaq kale ay ka dhigaan iyo dawladaha kale oo Islaamka dawadeedna waa iyaga laftigoodu sunni bay leeyihiin shiici ay leeyihiin kristaan bay leeyihiin firqo kuwa kale bilaaya bay leeyihiin yahuud bay leeyihiin markii dawladii la burburiyo kurdiyiin bay leeyihiin doonaya waliba sunni ah oo doonaya inay go'aan oo dawlad samaystaan markii awoodii dawladda la burburiyo waxay rabeen dawladaha inay taageeraan waxaan leeyahay kooxaha inay taageeraan oo koox walba ay gaarkeeda u istaagto mar hadii la burburiyana sideena ayaa qolo walba meesheeda lagu xukumay taa maxaa ka imaanaya marka dawladaha adduunka ugu qanisan in ay khayraadkoodii inay siday doonaan ka yeelaan siday Ciraaq u boobeen iyo dawladihii kale oo la midka ah marka ugu horeyn mashruucaas ah in dawlad islaam oo xoog la aanay jirin in ay ku fuliyaan ayay ka rabeen talabaad waxa weeye waa islaatiij Ciraaq lagu burburiyay dawlad islaam ah oo bariga dhexe ka dhisan ama u dhow oo yahuud wax yeeli ka dhaa inaanay jirin amniga yahuud wuxuu dhimi ka dhaa Ciraaq tan kuwaada loola dagaalamay taas ah waxa yahuud Suuriya kaliya u dhaxaysay kama fogeyn waxa loogu duulay waxay ahayd yahuud bay wax yeeli karaan tan nasaas oo kale ahayd marabad may ku khudbayeen yahuud bay khatar ku tahay hadda waad ogtiin Netanyahu waa ooyaya khatartii wuxuu leeyahay waa nagu siyaaday saan yeelo ma naqaan yahuud dawlad wax yeeli ka dhaa inaysan ka dhisnaan caalamul islaami iyaduna kowbay ka ahayd asbaabahay kula dagaalameen bay ka mid ahayd mideeda kale inaysan hub nuclear inaysan samaysan maxay mar dawlad nuclear ay samaystaan hadii loo soo dhawaanayo banaanka laga istaagay maxaa yeelay dawladdan bay hal mar cagta marin karaan kamid bay ahayd sidoo kale hadii maanta Iran laga adkaan lahaa mashruuci bayna nahrayn ayaa la bilaabi lahaa Turki bay ku duuli lahaayeen oo Masar bay ku duuli lahaayeen oo ay rabeen cagta inay mariyaan dabadeedna mashruuci ahaa hadda dhawaan uu ku khudbeeyay safiirka Mareykanka u fadhiya ee Israa'iil Netanyahu uu ku khudbeeyay marar badan Mareykanka laftigooda ay ku khudbeeyeen oo ah yahuud labada webi Furaat iyo Niil inta u dhaxaysa waa sida iyagu ay tamaniyaan dawladoodii ka dhisnaan jiray in dib loo soo celiyo lix dawladood oo islaami markaa liqayaan Falastiin waa liqayaan Suuriya waa liqayaan Urdun waa liqayaan Lubnaan waa liqayaan Sacuudiga saddex meelood meel bay qaadanayaan Masar ilaa webiga Niil bay qaadanayaan maxaan ku Ciraaq ilaa webiga Furaat kala bar bay qaadanayaan mashruucaas wax ka hor istaagi lahaa aysan jireen ayay rabeen markaas in la fuliyo hadda kaliyana waxa ka hortaagan awood uga hortaagan dawladda shiicada awood sidoo kale khayraadka wadan ilaahay khayraad kuma naystay way dheereerka ka daadanaya Trump kharaj waad maqlaysaa jasiirada 9% shidaalkooda ka soo magaalada kharaj ma ahayn inay qabsadaan bay rabeen oo ay sida Venezuela ay shidaalkooda ula wareegeen Venezuela maalintii la qabsaday baa aniga meel dhigtay in la weerari doono Iran maxaa yeelay horus inuu xidmo doono wuu ogaa Mareykanku si marka shidaalka carabta uga maarmo ayuu Venezuela u qabsaday dawladda shidaalka qani ku ah ugu horeyn shidaalkoodii baxoogay hadda way say ku goodinayay Eurobay aniga shidaal igama maqnay shidaal anigu waa haystaaye idinka hormus wax idinkaga xiran yihiin dagaalka wax ka soo gal marka sidoo kale inuu sidaa shidaalka iyo khayraadkeeda u qaato Mareykan iyo Yahuud ay u qaataan way rabeen inta haddaan asbaabaha aan kaga baxo ay u weerareen على أي حال هذه ما أنت ماشى أي كبح لهاي إيران وحوي ودن كلو إسلام ونمن كهور استاجه إيران إيش اللي يراهده وحي كحجين لهايين باكستان يو تركيا هذا والله قبق يوان إنه ويران يو كحجين لهايين أدون كفساد بينهم كسرين لهاي إلهي وقدرين مركب ولا لعد في الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض سيدي إلهي ويلي سبحانه وتعالى قلبا قلا إلهي كسر الأذان أرنت اللي هي لهين أرمد وفساد له هدان كسر جدبه أرنت في سامين محيي يران كذا أرتن منكي عرب أها وحوال الله تصي هذا عقل قاعدنا يا فاعتبروا يا أولي الأبصار وحيالا هذا يكون جوليستين إيران وحكم ده هاي وودن وين ودن كتضبيط منادو أدون كوين وين Soomaaliya wadankeeda 3 laab bay u dhigantaa taqriiban
nimankaasi marka waxay samaysteen ilaa 50 sano ee wadankooda dhisayeen oo hub samaysanayeen markaasay waxay fahmeen inaysan cir kula dagaalami karin Mareykan iyo Yahuud waxoodii oo dhanba dhulkay gashadeen adduunka hadda waa laga tagay kor in la dagaalamo hadday diyaarada leeyihiin hadday eerabar leeyihiin hadday sawaarig leeyihiin hadday warshado leeyihiin dhulka hoostiisa gashadeen baba markaas waa dhul ballaaran meelba ay wax dhigeen nimankii Carabaha marka waaba ku bariyay ugu yaraan 10 saldhig baa Mareykanka ku lahaa dawlad Carabiya dawlad uusan saldhig ku lahayn ma jirin haddana waxba ma tarin saldhigeedii Mareykanku markay la soo weeraray Iran iyagana way weerareen Mareykan iyo Yahuud ma difaacin nafsi bay yiraahdeen awal waxay ku jiifeen Iran waxa idin ka dhicinaya Mareykan iyo Yahuud waaba ku bariyay way arkeen iyaga baad laga qaadaa balaayiin doolar laga qaadaaye wax loogu qabanaya inaysan jirin waaba ku bariyay maxaa u eg marka horta Ilaahay inuu noqdo subhanahu wa ta'ala oo Ilaahay u toobad keena oo aaminaadii Mareykan ay aamineen inay Ilaahay u soo noqdaan Ilaahay inay aaminaan iyaguna inay midoobaan waxay ku dhinteen hadda qolo walba iyadoo xoogaa ay meel boqor la fariistay ana dawladda buu yiri qolo walba dhowr baa ku filaaday waka ila mardaad kala googoorid qiimo mari horta ugu horeyn waaba ku bariyay waxay ku badbaadi karaan inay midoobaan waxay ku badbaadi karaan inay Mareykan saldhigyadiisa iska raraan oo iyagu ay ciidan iyo dawlad midaysan ay samaystaan oo ay cadawgooda isaga dhicin karaan markaas Iran ka adkaan karaan laakiin sidii hadda yihiin waligood Iran kama adkaan karaan saasana baadal looga qaadaya wax loo taray wax laga difaacayana midna male way ku ooyeen oo ku calaacaleen muxuu Mareykan noo difaaci waay ma kala jecla haday burburaan hadii kale saldhigyadiisa kaliya ilaashanayay bas sidoo kale saamaynta ay yeelanayso waxa weeye in ay maxaan ku iraahdaa inay xoroobaan oo ka xoroobaan Mareykan iyo Yahuud haymanayeen awal ay isu dhiibeen arintaani dagaalkaani Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala saamaha wada waxa dhacday nimankii gaala ah dagaalkan oo kala tagay wixii la oran jiray gaashaanbuurtii NATO waa ku kala dhaqaaqeen markuu yiri Mareykanka iyo soo hiiliyay reer Yurub waxay yiraahdeen dagaalkan taladeedii miyaad u gashay dagaalka iyagii ma aha maya bayra waa lagu kala dhintay waa maqlaysaa hadda ayada iyo aflagaadada iyo waxa ay isu geysanayaan waa nasri Ilaahay xaqiisa ka ahaaday subhanahu wa ta'ala dagaalkaani wuxuu nasri ku noqonayaa caalamkii oo dhan baa waxay mar kale arkeen Yahuud maanta iyo shalay waxa aad u soo baxay dad Mareykan ah oo saameyn badan leh ama wariyaal ha ahaadeen ama siyaasiyiin ha ahaadeen oo Yahuud naclad ku dhifanay oo le Mareykan Yahuud baa haysata Netanyahu baa xukuma waa inaan iska xoreyn taa haday timaadana Yahuud mid Mareykan bay ku taagan tahay illa bihablin min an-nas wadii Mareykan uu yaa halka naga jooga way baaba'ayaan cid difaacaysa ma jiro Yahuud laftigeeda dawadeedii baa la ogaaday waxay oran jireen anaga bariga dhexe ka talina waa la ogaaday inaysan waxba ahayn iyada laftigeedu waa nasi insha Allah ta'ala samayn badan yeelanaysa hadaan u soo gudbo hadaan Soomaalinahay si uga faa'iideysan karno inagu waxaas waa arkaynay waa inaan ku cibra qaadano meesha maanta aynu naal ka war hadii la inoo soo weeraro istifaaci karno oo badeena iyo barigeena iyo dadkeena la yiraahdo waa la qaadanay amaya gacantan taagay bal waaba la soo dhaweynayaan waxaa tala amarka intii goor tahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed ceebtoodii baa banaan ku soo dhacday iyo shacabkii Soomaaliyeedba intii goor tahay hala tashado kow in nimankan shiiqa inoo sheegay waxay ku guuleysteen waxa ugu horeeya ideolojiyad bay lahaayeen mabda bay ku dagaalamayeen dawladdiina ilaashada dalkiina ilaashada madhabkiina shiicada ilaashada bay ku dagaalamayeen mucaarad iyo muxaafid ba goortii weerarku bilowday qof walba kamid ah wuxuu aaminay baa la yiri in qofka Iiraaniga loo socdo ee madaxdana aan loo socon wax kale aan loo socon sidaa daraaddeed dagaalkii mid bay u noqday in aan dad islaam baynu nahay waliba ahlu sunna inaan diinteena ku midowno
iyada inaan maxaan ku yiraahdaa isku raacno wa'tasimu bihablillahi jamiican wixii cadow ah oo dibadda inoo ka imaanayana ama gudaha dawladnimadeeda burburinayana inaan ilaahay dartiisa diin ahaan aan uga hormaadno aan kula dagaalamo waa ka qaadanay maxaa yeelay ciddii mabda' leh baa adkaata ciraaq maxaa lagu burburiyey mabda' la'aan bay ahayd iskuma raacsanayn waxba sunni iyo shiici iyo kurdi bay u kala qaybsanaayeen si fudud baa loo kala jijibiyey marka laakiin Iiraan waa si kas hadda waxay dagaal xad hadduu sii socday waxay yiraahdeen nimankan awal waxay aaminsanayeen haddii la dilo murshidkii caamka ahaa iyo madaxdooda inay hal mar kala sameynayaan oo wadanka shacabkii ciilka qabay ay la wareegayaan ma dhicin hadda waxay aamineen haddii dagaalku xataa sanad socdo nimanka inaan wax kala furfuri karaa jirin sidaa daraadeed waa kullu go'ayna baa leeyahay innagana maanta sida la inoo kala qaatay waa ogtihiin qayb waxaan kale yahuudi ay tiraan naga aqoonsanayo aqoonsi maaha waa cidii hadda arti cid yahuudi aqoonsatay waa cid ay rabaan iyagu inay qaataan oo si doonaan ugu adeegaan intaani kalena qaar badan oo kamid ah Soomaalida xataa mowqif cad kama qaado sidoo kale waa in dawlad midaysan la helo oo Soomaali ka dhaxaysa hadii kale la isdifaaci kari maayo gacmo maran ayaynu iyo af maran baynu haynaa haddaan la helin dawlad hal meel ka talisa ha dhisnaado maxaan ku yiraahdaa federaalku maamuladu ha dhisnaadeen laakiin taladu ugu dambeyn meel ka goodaa waa inay jiraan adduunka federaal waa ka jiraa Mareykanka waa federaal talada haddana Trump baa iska wada aragtay waa loo deynaya baarlamaan baa leh lagu farfaraynayo waa aragtay isaga haddii la doono waa la heli karaa laakiin khilaaf kale ma jiro haddii kale la isdifaaci maayo haddaan dawlad midan la helin inta saan loo kala qaybsan yahay adduun iyo aakhiro labadaba waa la ba'aya wax la gaari maayo sidoo kale waxaan uga faa'iideysan karnaa shacabka kalsoonidiisa in la soo celiyo oo dadkan gobolaysiga iyo qabyaaladda lagu kala dilay in cudurrada laga saaro oo ilaahay dartiis iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo diin in lagu midoobo loona wada sacdiyo intaas si loo difaacan lahaa markaas waxa imaanaya in dhaqaale la dhisto markaas waxa imaanaya awood ciidan in la dhisto markaas waxa imaanaya in laga fikiro xagee isku difaaci karnaa xataa wadamada yahuud waa aragtay hadda magaalooyinka dhisan magaalooyin kala ka hoos dhisan goortii gambaleelka muxuu ahaa uu soo qayliyo bahalka markay aswaarada arkaan kulli dhulka hoosta la gelay hal meelan galno anagu malaana hal dhufays malaana ama cidlayna naado adduunka korkiisa laga guurba hoos baa loo guuray waad arkaysa markaas waa talo imaanayso say isu difaaci karnaa markaas imaanaysa ciidan u dhisan karnaa markaas imaanaysa sidee dhaqaale u dhisan karnaa marka adduunkana maanta la isu turimayo wax allaale wixii adduunka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa la oran jiray mucaahadaad dawliya la oran jiray xuquuq aadami la oran jiray cagtaa la mariyay guddi buu dhistay Trump jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa booskooda uga shaqeeyay waa guddigan hadda uu yiri Falastiin bay xukumayaan waxa jamciyadda banaanka la dhigay isu turidii ma jidho waxaa inoo tala waxaynu sugaynaa oo kaliya waa in la isqabsado bas Allah musta'an marka intaasaan waa baxaya wabillahi tawfiiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in